Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaybta wadan nagala xiriirtay halkan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay cod maalin walba nagala socotaan. Waxaan kusoo qaadan doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo hadda lagu dhawaaqay, waxaana loo magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale oo hore u ahaan jiray ninka loo yaqaano Madaale oo hore u ahaan jiray duqa magaalada Muqdisho. Ninkan la yiraahdo Yuusuf Xuseen Jimcaale waa nin taariikh ku leh gobolka Banaadir, marna hore usoo noqday. Maanta Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay inuu ahaan doono gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho. Marka ninkaasi waa nin ka tirsan ururka Dam Jadiid, horena usoo noqday duqa magaalada Muqdisho. Wuxuu ka tirsanaan jiray ururka Al Islaax oo marna ka ahaan jiray imaam degmada Dharkiinley oo masaajid ayuu imaam ka ahaan jiray. Wuxuuna wax kusoo bartay Al Azhar jaamacadda dalka Masar. Waa nin taariikh ku leh ummadda Soomaaliya dhexdeeda. Waa nin lagu yaqaano nadaafadda magaalada Muqdisho inuu wax badan kasoo qabtay, laakiin waxaa lagu eedeyn jiray in dhulboob iyo waxyaabo kale lagu eedeyn jiray waqtigii oo ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir duqana magaalada Muqdisho ahaan jiray. Marka Xasan Maxamuud hadda wuxuu ku dhawaaqay inuu gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho uu ahaan doono ninka la yiraahdo Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, dadka qaarna u yaqaana Boorsani. Marka haddii aan dib u raacno, ninkan waa nin gobolka Banaadir muddo badan kasoo shaqeeyay, muddo ina isku dhaceen ku-xigeenadiisa waqtigii uu ahaa gudoomiyaha isha duqa magaalada Muqdisho uu ahaa. Marka waxaa leeyahay ururka Dam Jadiid isbalaaris ay wadaan oo meelo fara badan ay hadda sii qabsanayaan. Gobolka Banaadir haddii la wareegeen, ra'iisul ay la wareegeen, madaxweynaha ay la wareegeen, waxaa leeyahay meel kale wax u socdaan ma jiraan. Xaaladdu waa Dam Jadiid ku bilow, Dam Jadiid ku dhamay. Marka ra'iisul iyo duqa magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Dam Jadiid hadda waxaa la sugayaa in la raadiyo ciidamo Dam Jadiid ah. Marka dadka hadda is weydiinayaan ciidamo Dam Jadiid ma jiraan oo saraakiisha ragga ugu sarsareeya niman Dam Jadiid ku xiran ama Dam Jadiid saaxiib leh ama Dam Jadiid ka tirsan ma la helaa. Marka hadda waxaa seefta ugu dambeysay hadda ku wajahantaa leeyahay taliyaasha ciidamada midka ugu sareeya duqa isheeg magaalada Muqdisho hadda waa lagu guuleystay oo nin Dam Jadiid laga dhigay. Marka hadda waxaa aad loogu wajahan yahay taliyaasha ciidamada, waxaana ugu horeyn doona leeyahay Odwaa, waxaa ku xiga leeyahay ninka la yiraahdo isheeg Xijaar oo asagana booliiska haysto. Waxaa kaloo ku xiga leeyahay gudoomiyaasha degmooyinka ayagana waa la cuni doonaa oo gudoomiyaal kale ayaa lasoo magacaabi doonaa oo Dam Jadiid ah. Marka isbedelka iyo seeftu way socotaa. Mahad Salaad asnadkiisu waa Dam Jadiid, waa nin la yaqaano oo taliyaha Nisa waaye. Marka waxaas leedahay isbalaarintu Dam Jadiid way socotaa, laakiin dhaqdhaqaaqa iyo waxqabadka iyo hawsha waxa waaye weli faraka ma qodno, waana dadaalkuna uu yar yahay. Magaalada Muqdisho aan hal bilan ku sugnaa, dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee ka haysa aad ayuu u yar yahay, 100%. Ma aha in dowladda federaalka Soomaaliya kasoo horjeedo, ma aha in dhaliilayo, laakiin wixii aan kasoo arkay runta rabaa inaan ka sheego. Magaalada Muqdisho dadaalkii iyo firfircoonidii ciidamada ay lahaan jireen ma lahan. Waxaa malaysaa ciidamada markaa meelaha ku aragtid oo isha habeenka xataa adoo bajaaj saaran hadday ku istaajiyaan niyow waxba kuma weydiinayo, waxay ku leeyihiin niyow meeshaan iska taaganahay oo noo jeedaa oo qabowga ah, bal wax noo tur. Dadka qofka ninka bajaajlaha ma weydiinayaan, qofka saaran oo rakaabka ay weydiinayaan. Marka haddaa 2 door 3 door u tuurtid waa iska okay, waxaa waaye adiga su'aal dambe meesha kuma taalo. Marka ciidamada waxaa waaye xaaladooda saas waaye. Magaalada Muqdisho amniga marka askari meel taagan oo maanta dhahayo wax i tur, amniga oo sugi karo waa iska yar tahay. Marka ma garanayo in mushaaraadka laga joojiyay, in mushaaraadka weli ay qaataan, inay iska rabaan wax ay qaad ay isaga cunaan inay rabaan oo dhici kartaa oo qalbi mushaar qof mushaar kaliya bil ma sugi karo. Marka xaaladda magaalada Muqdisho waa saas. Haddana duqa magaalada Muqdisho waa nin hore loo yaqaanay, horena usoo noqday, ninka la yiraahdo Madaale ama Boorsani. Waa nin la yaqaano, laakiin waxyaabaha lagu eedeyn jiray waxay kamid tahay in muddo fara badan oo dhulboob magaalada Muqdisho ka sameeyay oo dowladiisa lagu eedeey waqtigii oo duqa magaalada Muqdisho ka ahaa Xasan Maxamuudna madaxweynaha ka ahaa lagu eedeyn jiray. Marka adiga ugu dambeyn markii dambe waa la bedelay, laakiin hadda waxaa la isleeyahay wax hadda uu kusoo kordhin karo oo hadda gobolka Banaadir ugu weyn hadda saas ma jiraan. Laakiin waxaa lagu yaqaana leeyahay xagga uu ku fiican waa xagga nadaafadda iyo howlgelinta dadka markan loo yaqaano milaamileyda oo macnaha hagaajiyo jidadka magaalada Muqdisho. Waxyaabahaas kale uu ku fiicnay muddo fara badanna uu isku dayay oo hadda inuu magaalada biiceeda wax kasoo celiyo, taas kale uu ku wanaagsan yahay. Laakiin dadka waxay ku eedeyn jireen waqtigii uu ahaa duqa magaalada Muqdisho gobolka Banaadirna oo gudoomiyaha ka ahaa, waxaa lagu eedeyn jiray in oo si aad ah macnaha xagga dhulka oo dhulal fara badan oo danta guud ah inuu qaatay ama oo isha si gooni u gatay. Marka taasna eedeyntaas way socon jirtay, laakiin wax ka run ah oo iyo wax ka been ah ma naqaano. Laakiin in lagu eedeyn jiray ayaan ognahay oo marar badan baraha bulshada la soo geliyay. Marka duqa magaalada Muqdisho hadda waxaan leenahay Ilaahay mid khayr qaba ka dhigo. Kolba Xasan Maxamuud oo soo laabtay, asagina oo soo laabtay oo ninka la yiraahdo Boorsani maanta xil ayuu helay. Cumar Finish horta dadka waxay leeyihiin Cumar Finish wax badan oo dhaamaa. Cumar Finish nin isku qabiil iyo isku laf maadaama ay yihiin, laakiin nin ma aha oo isheeg dadaalka Cumar Finish aad u sameeyo
macnaha xagga nadaafadda iyo xagga waxtarka Cumar Finish waa looga fiican yahay ninkan ugu fiican sida markii hore laga arkay labada mar ay soo kala noqdeen Cumar Finish wuxuu isku dhex qirnaya dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah dowladda xoogaa shaqo badneed oo ka dhaqaaq badneed ciidamadeedana howlgallo fara badan iyo xagga dadaalka gobolka Banaadir ay ku jireen marka ciidamadaas iyo waxaas ku dhex gambanayay oo hadda hawsha inta badan asagoo ma oolin laakiin waqtigii dambe xasan sheekh maxamuud madaxweynaha noqday intii uu ka joogay 4 bilo oo duq magaalada Muqdisho ahaa wax dhaqaaqa ma jirin dadaalkiisana aad u yaraa marka hadda waxaa la leeyahay ninka la yiraahdo Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ninka loo yaqaan ama Boorsani dadku waxay leeyihiin wuu dhaami doonaa ninka la yiraahdo Cumar Finish sababtoo ah wuxuu ku dadaali doonaa xagga nadaafadda magaalada Muqdisho wax badan ayuu ka tari doonaa jidadka qaar magaalada Muqdisho way dhisan yihiin marka jidadka qaarna waa iska rafaadsan yihiin aad u duunsan yihiin marka dadaal fara badan ayuu sameyn doonaa kolba bilowga ayaa la ogaan doonaa waqtina waa la siin doonaa waqtigiisii hadda wuu bilaabanaa maanta waxaa la leeyahay waxay dhaqan gashay maanta 7 bisha ay tahay waxaa dhaqan galay magacaabista madaxweynaha si rasmi ah ayuuna u dhaqan galay waxaa kaliya u hartay xil wareejinta in xilka lagu wareejiyo mar dhowna way dhici doontaa Cumar Finish dhowr maalin ka hor ayuu ka hadlay in la bedel rabo wuxuuna sheegay waxna bedel doono ma naqaan laakiin waa la bedel rabaa marka warkaas oo iska sax ayuu ahaa anigana shalay iyo daraad baan ka hadalnay in duqa magaalada Muqdisho oo miiska saaran yahay laakiin dadka loo saadaalinayay ninkan hadda 100% aad loogu saadaalinayo ma jiro waa markii ugu horeysay oo dowladda la yiraahdo xasan sheekh maxamuud oo hogaamiyo ka qarsooma shacabka qofka la magacaabi rabo waa markii ugu horeysay dadka waxay saadalinayeen Mugaab iyo dad kale ay saadalinayeen laakiin waa markii ugu horeysay oo nin beri dambe la magacaabi rabo aan weli laga ogaan baraha bulshada waa lagu amaanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadaalkaas waxa sameyn jiray ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan lagu weerari jiray qofka la magacaabayo laakiin waqtigeed Mahad Salaad la magacaabayo Talyaanisa banaanka ay iska taal xogta Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre xogtiisa in la magacaabi rabo 5 beri 7 beri ka hor ayaa ka sii hadalnay marka taas oo kale banaanka in laga helo isla markii xogtaada iyo qofka magacaabi rabto waa ceeb qaranka ceeb ayaa ku tahay xasan maxamed waxaan leenahay ka waanto taas oo kaleeto danna uma ahaan guud ahaanna shacabka Soomaaliyeed uma wanaagsana marka duqa magaalada Muqdisho ilaa 7 qof 8 qof ayaa loo saadaalinayay marka ninkan hadda madaalo kuma uusan jirin dadka loo saadaalinayay inkastoo hadda ugu dambeyn oo gacanta ku dhigay duqa magaalada Muqdisho isla markaana ah gobolka Banaadir gudoomiyaheeda waxaa leeyahay hadda wuxuu magacaabi doona gudoomiye ku xigeenadii ayaa mar dhow la magacaabi doona waxaan ku sii xigi doona in la kala bedelo 18 degmo la magacaabo dad kale cusub marka way fiican tahay dowladda haday imaado in isbedel imaado oo ayada hadhow wixii ka dhaca meeshaas ama wixii dhibaato ka yimaado in lagu xisaabtamo ayada iyo wixii guul ay keento ayada lagu amaano wixii qalad ay keentana ayada sheeg lagu waxay marka dadku waxay dhahayeen waxa isku dhex jiray dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda xasan sheekh maxamuud labada isku dhex milnaayeen marka eedo fara badan iyo isku jijid ayaa jiray waxay leeyihiin taliyaasha hore ciidamada waxay xaqranayaan dowladda cusub si ay macnaha dhibaato iyo fashil iyo ceeb u imaado maadaama ay ogyihiin in la bedel rabo marka dadka qaarna waxay dhahayeen taas ma ahine waxa ka gaabiyay xasan maxamuud in mar hore bedelayd markuu yimaado in hore ka bedelo ka sifeeyay marka waxyaabahaas oo dhan hadda way soo dhamaatay taliyaasha ciidamada waa la socdaa xilka waa laga qaadi rabaa haddana waxaa xilka laga qaaday duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish oo hadda banaanka ka joogo mar dhowna xilka wareejin doono marka waa amaanaynaa shacabka Soomaaliyeed oo mar walba barteena bulshada nagala socdo anagana waxaan idin rajaynaynaa insha Allah inaan idin soo gudbinin wax aan xaqiiqada ku salaysnayn waan ku maasantiin la socodkiina barnaamijkeenan waxaan ka codsanaynaa YouTube-keena subscribe iyo like share-tana la wadaagtaan tan kulanteedna buuxisal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo